xabadda dhacaysa kama aysan joojin inay sii wadaan iyada iyo saaxiibadeed bannaanbaxa iyadoo weliba iyada si gaar ah rasaas toos loogu ridayo sida muuqaalkan oo xilligaas la duubay uu muujinayo. waa Deeqa Muxyidiin Daa'uud oo loo yaqaano Deeqa Soomaali oo ah gabar muuqaalkeedu uu si weyn u qabsaday baraha bulshada shalay oo Jimco ahayd iyada oo uu rasaas ku ridayo nin dhar shacab watay oo la sheegay inuu ahaa askari ka tirsan ciidanka dowladda xilli ay ka mid ahayd bannaanbaxayaal dhigayay bannaanbax looga soo horjeeday dowladda Soomaaliya. Deeqa Muxyidiin Daa'uud iyada oo wadata mikrofoonkan isla markaana waxa ay qabsatay baraha bulshada xabad uu ku ridayo qof la sheegay inuu ahaa askari ka tirsan ciidanka dowladda balse xilligaas watay dhar shacab. Deeqo waxa ay sheegtay in iyada ujeedkeedu uu ahaa in ay si nabad ku cabirto fikirkeeda ku aadan arrimaha doorashooyinka iyadoo wadata mikrofoonkan. waxa ay sheegtay in fikirkeeda ay ku cabiraysay si nabad ah balse ay la kulantay wax aysan filaynin oo ah in toos rasaas uu ugu furo qof aysan garanayn waxa uu yahay kadibna loo geystay dhibaatooyin kale oo xarig iyo jirdil uu ka mid yahay sida ay sheegtay. shalay markii laga soo baxay khudbada Jimcaha ayaa waxaa ku qabanay bannaanbax banaadir masaajidka Cabdulaahi Ciise hortiisa. markii adig daqiiqado yar aan joogno oo bannaanbixi socdo oo aniga iyo laba qof oo kale ay hadashay waxaa u dhaqaaqi rabnay dhinacaas oo istaal Digfeer. saas marka u dhaqaaqanay nin dhar shacab wata oo bastoolad wata ayaa nagu soo baxay. ninkii xabaduhu nagu riday dadkii shacabka ahaa oo nolol bannaanbaxay way kala carareen. aniga dhowr qofood oo kale bisaha soo hartay. waxaan dhahnay mikrofoonka waxaa ku dhaana askari sharciga ilaali inuu askari noo sheego. kuli hore nin oo dhacdo ahaa wuxuu yameena ogeyn. ninkii adiguna maqli waay dhigayso inuu cabsi geliyo isku dayay maxaa la lahaa bastooladu saan igu soo taagay xabadu korkeyga meesha ah ay ku dhacday. gabdhaha kale walaalay sidoo kale u sigteen. ugu dambeyn gaari ciidan oo wacday aa imaadeen waana la qaaday aniga iyo laba gabdhood oo kale iyo wiilal wariyaal ah. waxaana la geeyay saldhigga hodan markiina la geeyay meeshaas naftarkeeda si fiican mana loola dhaqmay. xataa ay naftarkooda jirdileen loo geysteen qaarkood askartimid oo imaatay gadaalka imaatay si arxan daraa baabuurka noogu tuureen. meesha markiina la geeyay si arxan daraa qolalna loogu tuuro wasakh badan oo mugdiya. daqiiqado maraa meesha ku jirnay kadib haddana waana laga soo qaaday waxaana la keenay saldhigga Howlwadaag. saddexdeen gabdhood aana la soo qaaday. aniga in gabdhaha saldhigga Howlwadaagna lagu dejiyay midna waxaa loo waday Xamrajab. haddana cabaar kadib kaliga ayaa la soo saldhigga Waabriya la keenay. saldhigga Howlwadaag markii la keenay oobiga ninka qoraayo wuxuu ii qoray waxay ku eedeysan tahay qalqalgelin amni. markaas waxaa ku dhacay ana oo gabar ah oo shacab oo mikrofoon wato miya qalb amniga qalqalgelinayo mise ninka xabadda aniga dhafoorka iga saaray oo askariga sheeganayo. marka laga soo tago inaysan ogeyn sababta rasaasta loogu furay waxa ay sheegtay inaysan weli jirin cid kaga garaabtay wixii gaaray. dareenkayga qof xabad inta lagu riday horta aysan cabsi gelin qalbigiisa ma jirto. laakiin still waxa uu arkay inaan ahay qof xaq leedahay difaacanaysa qofka xaq uu leeyahay inuu difaacanayna way adag tahay inuu ka cararo. taas aniga aan ku dhiiranayo oo meesha u sii taagnaa aniga iyo gabdhaha kale walaalay ah maya waxa ay dawladda igala soo xiriirtayna ma jirto. saldhigyada la igeenayna badankooda waa la igu sii handadaayo waxa la ilaahay waa lagu soo celinaa warqadiija lagu geenaa xabsiga ku uray nagastaan waa lagu dilaa. marka dawladdu u bareertay dadka inay cabursan u bareertay laakiin insha Allah sharciga guuleysanayo. Maxamed Idil Raadi ay telefishinka Dalsan Muqdisho.